السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد يوتيوب channel كيني قصولج. waxaanu maanta course-kii computer accounting-ka ama computerized-ka ama sidoo kale waxa loo yaqaan QuickBook ayaynu halkii ka sii wadanay inagoo casharaas ay noo soo socdeen laakiin halkiis inaga dhaceen. waxaan maanta gudaha u galaynaa waxa loo yaqaan aynu sii wadaynaa casharkaas. waxaan maanta saddex shay baan qaadanaynaa soo koobid ahaan oo cashar noo socday ma aha cashar imka aan bilaawayno ilaa 6 cashar baan rajeynaya inaan soo dhignay. casharkii toddobaad inuu noqdaan rajeynaya. waxaan ka hadlaynaa saddex shay maanta wax loo yaqaan hadaba waxa weeye computer accounting-ka sida invoice hadii aad invoice ama invoice jarto sidee transaction hore dhacay aad wax uga bedeli kartaa. imika tusaalahan customer-kii markaan soo galno aan invoice nimaadno halka waxaad ku aragtaa qof baan tusaalahan waxa ka iibinay baasto halkaas baasto ku aragtaa konton baan ka siinay halkaasina waa bariis 100 baan ka siinay xalay quantity-gi weeyo 30 bariisa iyo 30 xalay 100 bariisa iyo 30 basta oo inagu joogo 12 iyo 35 midna inagu joogo amount isku geedo intaas ah transaction-kii marka doonayso inaad wax ka bedesho aad dabatana aan imika wax ka bedelo ayimka ku qoro wuxuu ku leeyahay ma waxbaad ka bedelaysaa oo ma ku diiwaan gelinaa waad ku dhufanaysaa dabatana siyaasi wax kaga bedelmay wax weyn oo aad u weyn ma aha report-ka imika hadii aan aadno aan mar kale ku tijaabino sales man aadnay report-ka waxaan aadaynaa tusaalahan macmiil aan ku khaladnay waxbaan ku khaladnay magaciisa baan khaladnay tusaalahan macmiilka oo qof kale inuu transaction u gelin dabatana gudaha inu gelina all baan oranayna ka bacdina galool baan ka soo qaadnaa oo casharadii hore inoo socday weeyo rag aan hore u diiwaan gelin galool sida ku aragtaa halka wax ku aragtaa invoice ama invoice hore lagu jaray invoices-ka galoolka loo jaray qaar kamida mid baan ku dhufanaa ka markaan ku dhufano tusaale ahaan imika halka waxaad ku aragtaa galool waxaan doonaynaa galool in lagu khalday tusaale ahaan juwanka oo nin kale uu lahaa juwanka ama invoice-ka meegaag baan ka dhigaynaa tusaale ahaan dabatana invoice-ki inoo diiwaan gashay imika wuxuu nagu diiwaan gashay report-kii macale waa inuu ka bedelmi karaayo meegaag aan u wada dejinaa computer-ka ku nahnaa war meegaag baan xasin imika save and you have a change wad bedelaysaa uu ku leeyahay okay baan ku oranaa imika si toos u bedel oo uu ka wareejiyo wuxuu ka dhigay ninkii loo yaqaanay galool uu ka bediyo meegaag buu ka dhigay imika saaka ku aragtaan raggaan soo sameynay hadaan transaction kala sameyno oo mid kale ku tijaabino oo ah markaanu mid delete garayno imika kaasaan gudaha u galay waxaan doonaa ka ay ku qoran tahay hoose line-ka please ku qoran tahay baan doonaa gabigiisa inaan ka delete garayno meesha oo transaction hore meesha jiray dabatana waxaan saarnaa highlight dabatana waxaan aadaynaa edit dabatana waxaan ku qoran halka ku qoran tahay maarta delete line-ka hoose ka delete garanay imika delete line-ka hadaan ku dhufto line-ka hoose hawadu ka baxaya laakiin waxa ka duwan marka doonayso transaction-ka meesha ku jira ila invoice-ka transaction gudba ku wada qortay marka doonayso invoice-ka inaad transaction-kiisa meesha ka wada saarto oo khalaas ka dhigtana way ka duwanta oo markuu transaction-ka doonayso halkaas aad tagaysaa delete baad ku dhufanaysaa wuxuu ku oranayaa miyaad doonaysaa inaad delete garayso sax waan doonayaa waad oranaysaa okay baad ku dhufanaysaa okay haddii aad ku dhufato hawadu ka baxaya oo transaction-ka dib loo arki maayo computer-kuna wax ma yaqaano marka la joogo computerized-ka ama account-ka la joogo wax undo la dhaho sida wax loo yaqaan Microsoft-ki ama Word-ki iyo wixii wax undo la dhaho ma yaqaano sidaas uu ku baxay sidaas uu ku tagay way imika okay hadaan ku dhufano sidaas uu ku tagay oo ma jirto wax loo yaqaano undo waxa yaqaana dadka Microsoft Word-ka soo dhigtay dhalinyarada badan ku garanayaan okay baan ku sidaas uu ku baxay imika marka waxaan soo yaqaan transaction line marka la delete garanayo iyo marka la wada delete garanayo iyo marka macmiil wax ka bedelayso masiixid la xor bedelayso hadaba wax loo yaqaano void transaction hore u jiray ayaa waxaan ka dhigaynaa inaanu balance sheet-keena ama waxa loo yaqaan income statement-keena ama xisaabteena waxna ku kordhin waxna ka dhimin iska transaction kun meeshu iska oolaya laakiin wax xisaabteena uu saameynaya ma jirto kaasna waxa loo yaqaan markan transaction imka aan soo qaadnay aan soo qabanay waxa oranaysaa halkii meel kale aadmayso isagana halka dotka bad ku dhufanaysaa void halka ka hooseysa void ku qoran tahay baad ku dhufanaysaa dabatana saas uu ku noqonaya waxa loo yaqaano transaction saas uu ku qaadanaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساسو كفر قريسين.